taliye odawa ayaa sheegay in xilka uu uga tegay khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa ka jira khilaafkaas in uu salka ku hayay xirooyinka military oo madaxweynuhu la sheegay in uu doonayay inuu guud ahaanba ku wareejiyo dad gaar ah si ay uga macaashaan sidoo kale odawa ayaa la wariyay xogo soo baxayna ay sheegayeen in xilkiisa uu ku waayay guutooyin kala duwan oo ku jira hiilweyne oo xiro ciidan ah una dhaxaysa muqdisho iyo balcad uu doonayay in uu furimaha dagaalka geeyo si ay uga qayb qaataan dagaalka tooska ah ee lagula jiro kooxda loogu yeero argagixisada wararkii ugu dambeeyay ayaan halkan ku soo gudbi doona saaxiibayaal ee soo dhawaada haddii ay tahay markay kugu horeysay ee aadna soo booqato waxaan kaa codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan meel dheer nala gaarsiisaan qaybta hoose ee falladan aragtidina nagula wadaagtaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal sareeyagaas odawa yuusuf raage sarkaal sare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan muddo 2 jeer ah ayuu soo hogaamiyay ciidanka militariga Soomaaliya waxaana uu ahaa taliye da'yar ugu qiimo badan sidoo kalena meelo badan oo furimaha dagaalka tagay kana qayb qaatay dagaalo badan oo dalkan horay uga dhacay isaga oo dabla ah ilaa iyo heer sareeyagaas uu yimaado waxa uu ahaa bartilmaameedka koowaad ee cadawga isaga oo mar walba ku dhiirin gelinayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidii ay kaga hortagi lahaayeen fal kasta oo ay argagixisadu doonayso inay ku gasho meelaha qaar ee ciidanka militariga Soomaaliya fadhiyada ay ku leeyihiin waxa uu ahaa laguna tilmaamay haliyay aanan xilliga dagaalka gaban sidoo kalena aanan goobta dagaalka ka cararin waxa sidoo kale askarta iyo saraakiisha kale ee shaqo wadaaga ay ahaayeen ay ninkan ku tilmaameen nin hal adeegiisu uu gaarsiiyay meel uu dagaal ka socdo ciidankana xeelad dib u soo gorasho doonayeen inay sameeyaan uu ka diiday taasi oo ugu dambeyn keentay in guulo dagaal oo isdaba joog ah oo muhiim ah uu ka soo hoyiyo furimaha dagaalka xilkiis ayuu ku waayay khilaaf la tilmaamay in uu kala dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud bilihii la soo dhaafay iyadoo ay socotay burburinta iyo baraakicinta dadka shacabka ah qayb ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xirooyinka qaarkood loo asteeyay in si gaar ah gacanta loogu geliyo dad ganacsato ah ayaa odawa la tilmaamay inuu ka hor yimid go'aano iyo wada tashiyo dhowr ah oo uu la hortagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliska ka sareeyaba la tilmaamay in laga qaadan waayay taas oo keentay in taliye odawa ugu dambeyn xilkiisa uu ku waayo xogaha soo baxaya iyo wararka aan helayno waxa ay sheegayaan in sababta ugu weyn ee taliyuhu uu xilkiisa ku waayay ay tahay dagaal uu doonayay in uu geliyo guutooyin kala duwan oo ciidan ah kuwaas oo si gaar ah ugu xareysan xirada hiilweyne oo u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Balcad kana mid ah xirooyinka ugu waaweyn ee xilligan ay ku sugan yihiin ciidanka ugu badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay in ciidankaas halkaas uu ku ilaashanayo taliye odawaana uu doonay in furimaha dagaalka uu ku shigo laakiin markii uu ka war helay madaxweyne xasan sheekh maxamuud arinta ah in ciidankaas taliye odawa uu doonay inuu furimaha dagaalka u qaadana xilkan ama xilka qaadistan ay si degdeg ah u soo ifbaxday nin da'yar ah oo ka mid ah isla ciidanka saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda xilka loo dhiibay oo la filayo in isagana wax qabadka taliye odawa in ka badan in uu ciidanka gaarsiiyo oo ay tirakoobka ugu horeyso odawa qudbadiisa waxa ku jirtay in lagu ixtiraamo sidoo kalena lagu dhiirigeliyo taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aragtidiisa ku aadan howlgalkan ama howlgalada kala duwan ee gobolada dalka ka dhacaya maadaama taliska ciidanka uu helay diyaaradaha F16ka kuwaas oo si weyn uga qayb qaadan doona dagaalada tooska ah ee lagu jiro kooxda argagixisada ee ka dagaalamaysa qayb ka mid ah Soomaaliya runtii waxaan rabaa waa iga codsi madaxda qaranka dabcan taliye marka la magacaabo wuxuu leeyahay aragti iyo istiraatiijiyad iyo hadaf oo rabo inuu ku hormariyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya asigoo dabcan diritoobooyinka madaxdiisa qaranka qaadanaya waxaan marka ku tali lahaa taliyaha cusub in lagu tixgeliyo lagu dhowro lagu gacan siiyo istiraatiijiyadiisa iyo aragtidiisa si uu u dhiso ciidan waxgala oo la dhaxlo oo mustaqbalka dalkan lagu halay karo waxaan rabaa saaxiibadayda taas waxaan leeyahay muxuu ahaa ii sheegeen madaxdayda qaranka oo runtii ixtiraam iyo xushmad badan aan u hayo ugana mahad celinayo fursadaha ay siiyeen waxaan rabaa sidaas oo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiil xigeenada alifleyda ee dableyda waxaan u dhaarnaa dadkeena waxaan u dhaarnaa dalkeena runtii cidda u baahan inaan daacad u noqon loyalty u noqono waa dalkeena iyo dadkeena cid kale ma ah waxaan ku dardaarmayaa marka mar walba daacad ahaanshaha iyo isku duubnida iyo adeegida ummadeenu inaanay marnaba aanay mugdi naga gelin
haddii ilaahay ogolaado waxaan rabaa saaxiibada beesha caalamka waa u mahad celinaya laakiin waxaan rabaa inaan hal eero ku darsado oo ah taageerada aad bixinaysaan waa inay noqotaa mid dhisaysa qaranka Soomaaliyeed caawinaysa amniga ummadda Soomaaliyeed caawinaysa dawladnimada Soomaaliyeed balse aanay noqon mid hoos faraha la isu gelgeliyo oo caqabad ku noqota horumarka iyo dawladnimada Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aad iyo aad mar kale waxaan anigoo runtii ku faraxsan mas'uuliyaddan inaan maanta wareejiyo aan halkaan rabaa inaan ku wareejiyo calanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mas'uuliyadiisu ay saaran tahay dabcan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka waa mahadsantihiin mar kale salaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu halkaana mudan ra'iisul wasaare waxaan ka arkaa nin saaxiibkayo xijaar la yiraahdo waqti dheer aan isla soo qaadanay taliyihii hore ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa mahadsan yahay wuxuu ku soo kordhay saaxiibayaal khilaafkan oo soo ifbaxay saacadihii la soo dhaafay iyo kulamo gaargaar ah oo durba ka bilowday Villa Soomaaliya oo uu la qaadanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taliyaha cusub iyo sidoo kale hoggaanka kala duwan ee saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed loogaana arisanayo bilaabidda howlgallo toos ah oo kooxda looga saarayo deegaano badan oo ka tirsan gobolada Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Galgaduud Hiiraan Mudug waa Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo oo koonfur galbeed Jubbaland Hirshabeelle iyo Galmudug ka kala tirsan wixii ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan